sida aan ku dhisayna ilaahay baa ogaa ama aan ku gaday madaxweyne iima gadin xildhibaanna iima gadin wixii ilaahay isii dhiidkaygaan ku gad maantana nin baa u ordahaya inuu jabsho oo uu ku qoray oo weliba uu ka yiri xasan sheekh iga soo gatay xasan sheekh ma boos sharciya oo maxamed siyaad barre dawladdiisii sabraloog iyo rajabuud loo jaray miyuu kaa gat aday ku talo aniga xasan sheekh 920 boos xasan sheekh iga soo gatuu taagan anigu inaad ka gaateen kala ma ogi ilaahay ka cabso dhulkeenna noo nabadgeli madaxweynihii dalka ta qabri iyo qiyaama ku sugaya haddii ilaahay ku qadaro wallahi waa dhima doontaa mar ay noqoto waa dhima doontaa godkiya ku sugahaya ilaahay ka cabso cabashadeena muuji shacabkaad u dhaarataan ka midna dawladnimada kama soo horjeedno madaxtinimada kama soo horjeedno bal waxa laga yaabaa rag badan oo ku taageersanaa inay kamid yihiin ragga meeshan fadhiya waxaan ka codsanaynaa dadkaas dulmiga nagu haya ilaahay baa awood leh maanta adaa maamula aday warkaaga maqlayaan dadka naga cabashay way cabanayaan waxay ka cabanayaan culays soo fuulay korkood qof walbo dadkan kamida waxay ka cabanaysaa culays dushiisa soo fuulay dadkan waxa isu keenay cabasho iyo maarta culays la soo saaray waxaan rabaa marka anoo ku hadlayo magaca dadkaas inaan fariin u faro laba qolo midda koobaad waxaan u diraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud aan u diraa waxay tahay fariintaas dhulaan anaga deganahay suuqa xoolaha ku yaala degmada Yaaqshiid waa hadeer Daar Salaam loo bixiyay waa xaafada kooda luuliyo waxay daris oo leeyahay dhulkaasu xeradii militariga Soomaaliya laakiin nidaamka dhulku waa dhulkii goofka ahaa oo dadkan kumiitiyada ku soo baxay oo goof jabiska la qaato gooflayaasha marqaatiyaal yihiin joogan arintaas waxaan u sheegaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda ilaahay xaqiisa u fiirinaya nimankaas warqadda soo qaatay inaad ka qabato horta nimankaas inaad ka qabato gobolka iyo waxa la wax masuula baliiska nimanka tootaha wata dadkan waa dadkii shacabka waa dadkii u soo halgamay dalka inta Soomaaliyeed ilmahooda ku dhimatay arintan arin dhibta weeye waa in laga qabtaa si degdeg madaxweynuhu u fargeliyo arintaas warqadda ka daba tagaa 37 sano deganahay meesha dhulka dhan intiisa badan banaan u ahay gooflayaashii iyo wixii yacni wax sharciyeystay iyo wixii yaa soo degay dhulka waa la gatay inta badan in la siiyay waa yartaa dadka inta badan lacag ay kala baxeen xeraduna nooma dhawa oo xogaa ay noo jirtaa